sirdoonkii gebi ahaanba ku bedelay dhabadii ku socday dagaalkii labaad ee adduunka xog kaliyaata waxaanu midowgii Sofiyeetiga ka badbaadiyay inuu habaaska galo dawladdii naasiga ee Jarmalka oo xilligaasi dunida ugu taag badnaydna gadhka ayuu ciidda u daray waaxda sirdoonka Sofiyeetiga ee dalalka Khaliijka Carabta waxaa loogu yeeri jiray Ramzi duniduna waxay ku tirin jirtay mid ka mid ah basaasiinta ugu khatarsan intii lagu guda jiray dagaalkii labaad ee adduunka inkastoo dhalashadiisu ay ahayd Jarmal haddana waxa uu naaziyiinta u khiyaamay fikradda shuuciga oo la dhacsanaa xogta sirta ah waxa uu ka soo xigtay gacalisadiisa oo ahayd xaaska safiirka qunsuliyadda Jarmalka ee Tokyo Stalin markii warka lala wadaagay dhag jala qumuusin laakiin dib ayuu ka adeegsaday xogta sidoo Moscow uga badbaadiyo ciidamadii naasiyiinta ama kaagiyo fajacu Stalin ka qaaday basaaskana waxay sababtay inuu yeeso inkastoo Sofiyeetigu u qabtay wax badan haddana Joseph waxa uu iska indhatiray inuu ka badbaadiyo jeelalka Japan oo lagu daldalay ugu dambeyntii waxaa loogu magac daray basaaskii ugu weynaa ee lagda xoogagii Hitler guushana siiyay Joseph Stalin haddaba maxaad ka taqaanaa Richard Sorge maxayna tahay xogta uu baahiyay ee badbaadisay midowgii Sofiyeetiga dagaalyahan Jarmal oo shuuciya Richard Sorge waxa uu sanadkii 1895 ku dhashay caasimadda Azerbaijan ee Baku aabihii waxa uu ka soo jeeday Jarmal hooyadiina Ruush sanadkii 1914 Sorge ciidamada Jarmalka ayuu ku biiray da'diisuna may dhaafsiisnayn 18 jir dagaalkii koowaad ee adduunka dhaawacay ayaa soo gaaray oo sababay inay farta gacanta bidix goodo lugtana uu naafo ka noqdo ilaa inta noloshiisa ka harsan Sorge waxa saameyn weyn ku yeeshay Karl Marx dabadeedna waxa uu qaatay fikradda shuuciga jaamacadda Berlin ayuu kulliyadda dhaqaalaha ka bartay kadibna waxa uu ku xigsiiyay culuumta siyaasadda sanadku markuu ahaa 1919 ayuu ku biiray xisbigii shuuciga Richard waxa uu safray Moscow halkaas oo wadadii noloshiisa ku socotay ay gabi ahaanba isbedeli doonto fikradda shuuciga ayaa waji kale u sameynaysa aragtidii siyaasiga ahayd ee Sorge waxaana kalifaysaa inuu wadankiisa u khiyaamo midowgii Sofiyeetiga una basaaso Jarmalka sirdoonkii Sofiyeetiga bila yaroon kadib waxa uu is arkayaa Sorge isagoo bartanka uga jira sirdoonkii Moscow sanadkii 1933 waxa loo idmanayaa mashruucii khatarta ah ee Japan lagu basaasay qorshuhu waxa uu ahaa inuu hirgeliyo shabakad isku xidhiidhsan oo buddig u noqonaysa dabinada sirdoonka Sofiyeetiga Japan balse Sorge silsiladiisu way ka xeel dheereen xisbigii shuuciga iyo safaaraddii Japan waxaanu toos xidhiidh ula sameeyay madaxii qunsuliyadda Jarmalka ee Japan xaaska safiirka ayaa noqotay bartilmaameedka Sorge waxaana dhex maray xidhiidh jacayl Stalin wuxuu yeesay Sorge dagaalkii labaad ee adduunka ayaa ka dhex qarxaya dawladaha Jarmalka iyo Talyaaniga kadib waxa ku soo biiraya Japan dawladaha xulafada Faransiiska iyo Britain dabadeed Sofiyeetiga iyo Mareykanka ayaa ku soo darsamaya safka dagaalka sanadkii 1939 markii xoogagii Naazigu ay weerareen Poland waxa Sofiyeetigu hogaaminayay Joseph Stalin iyo Jarmalku ay kala saacadeen heshiis ah in labadooda dhinacayna qayb ka noqon iska horimaad ka dhex dhaca labada daraf haddii dagaal qarxo Stalin waxa uu aaminsanaa in Hitler marnaba uu soo weeraray Sofiyeetiga ciidamadii ugu xoogga badnaa waxa uu geeyay sohodinta ay la wadaagaan Japan halka jihadii Jarmalka ay taagdar haysatay Sorge xilliga waxa uu xoojinayay xiriirkii kala dhaxeeyay qunsuliyadda Jarmalka ee Japan kadib waxa uu helay xog ku salaysan in Jarmalku damacsan yahay inuu weerarayo Sofiyeetiga macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan xog sireedda uu helay ayuu u soo diray Stalin Joseph Stalin uu dafiray arintaasna waxa uu ku tilmaamay inay been abuur tahay wargeysyada ka soo baxa Moscow ayaa subaxii ku soo daabacay hadal uu ka yidhi Stalin xogta Sorge dhaqankani waxa uu ka shaqeeyay goobaha lagu tunto ee Japan waxaanu leeyahay 22 Juun ayaa naasigu dhulkeena soo weeraraya misana uu rabaa inaan rumaysto fajaci ama kaaga ayaa Stalin ku dhacay markii Hitler soo weeraray Sofiyeetiga waxaanu gaaray duleedka Moscow xaruntii midowga looga talin jiray burbur laxaad ayuu u geystay ciidamadii cirka ee Sofiyeetiga markii muddo ka soo wareegtayna waxay gaadheen ciidamadii Sofiyeetiga laga qabsaday ilaa 3 milyan oo askari milicsigii nolosha ee Sorge intii uu socday dagaalku caasimadii Sofiyeetiguna qarka burburka ka laalaado ciidamadii Ruushkuna ay ku sugan yihiin xuduudda Japan si ay uga digtoonaadaan weerar Japan dabacsan tahay fariintii labaad ayaa ka timid Sorge oo noqonaysa mid dib u soo celisa noloshii Ruushka waxaanu nuxurkeedu ahaa in Japan aysan weerar ku soo qaadin Sofiyeetiga ilaa caasimadda u gacan gasho Hitler Stalin waxa uu si degdeg ah u soo raray ciidamadii ku sugnaa bariga Siberia si uu ugu xoojiyo ciidamada naasiga dagaalka kula jira waxaanu u soo diray 15 guuto 1700 kaar iyo 1500 diyaarado dagaal waana arintii bedeshay wajigii filashooyinka dagaalka ee la saadaalinayay si diiwaanka loo galiyo guuldarrooyinka Hitler naasigana uu dhulka u galo abaalmarintii Sorge kadib markii gacanta lagu soo dhigay mid ka mid ah shabakadda Sorge ee Japan waqti dheer may qaadan in la soo qabto sanadkii 1941 ugu horeyntii dawladda Japan waxay u haysteen inuu yahay basaas Jarmal
balse markii la jirdilay ayuu qirtay howlgalkiisii sababtii uu dalka u joogay. Tan ugu la yaabka badanna waa in Joseph Stalin iska indhatiray xiriirka kala dhexeeya Richard Sorge inkastoo ka badbaadiyay Ruushka guuldarro xaqiiqo ah. Jeelalka Jabbaan ayaa Sorge lagu ilaaway ilaa lagu daldalay sanadkii 1944. Haddaba daawade, Stalin ma waxa uu yeesay Sorge inuu khiyaamay waddankiisa Jarmalka mise in loo tiiriyo guusha Sofiyeetiga ee dhabarjabkii Naasiga?